بسم الله الرحمن الرحيم. kusoo dhawaada casharkii afraad ee casharada luqadda Swedish-ka. casharkan afraad waxaan ku qaadan doonaa erey su'aaleedka la isticmaalo ee luqadda Swedish-ka. erey su'aaleedka waxaa la yidhaahdaa fråga urd baa la yidhahdaa. fråga waa su'aal, urdna waa erey weeyaan. marka waxa weeyaan waa ereyada kala duwan oo loo isticmaalo si aad u su'aashid magala su'aal aad u weydiisid. jumladahana waxay ka galaan dhanka hore ayay jumladda ka gashaa sidaan ku arki doono tusaalooyinka soo socda ee aan akhrin doono. haddaba luqadda Swedish waxay leedahay dhowr erey su'aaleed bay leedahay. kuwan kaliya halkan ku xusan kuma koobna, laakiin kuwa kale ayaa jira, laakiin waxaan soo qaadan doonaa inta ugu badan la isticmaalay ugu caansan. waxaan ku bilaabi doonaa ereygan ugu horeeya ee la yidhaahdo vad, oo ah maxay weeyaan. ama waa maxay oo kale noqonaysa maxay ama waa maxay weeyaan. naar waxa weeyaan waa goormo weeyaan. hurdags waa goormo isaga laftiisa. marka naar iyo hurdags laba shay way kala duwan yihiin. naar waxa weeyaan si guud ahaan baad u weydiinaysaa, يعني goorma goorma waxaas dhamaa matalan dhacaya, goormaad dhoofaysaa. waa goormadii caadiga ahayd weeyaan aan isticmaali jirnay. hurdags hal shay bay kaga duwan tahay, marka waxa weeyaan waqtigaa la weydiinaya exactly haddaad waqtiga haysid oo saacaddii oo kale. maxaa la yidhaha goormaad dhammaynaysaa? waxaan dhammaynayaa 6, 7, 8. haddii aad waqti go-an aad ka su-aalaysid marka waxa weeyaan waa inaad isticmaashid hurdags aad markaa isticmaashid. hur baa jirta markaa oo iyaduna ah sidee weeyaan. var iyaduna waxa weeyaan goobtaa la weydiinaya halkee weeyaan. vart baa jirta oo halkee iyadu ah, marka iyaduna oo ka duwantii hore. var waxa weeyaan waa halkee, waxaad qofka weydiinaysaa halkee joogtaa oo kale, laakiin vart waxay la micno tahay halkeed u socotaa oo kale. jihadii baa la weydiinayaa aad u socotid, ma garatay. varifron iyada lafteedu waxa weeyaan waa halkee oo kale weeyaan, laakiin waxaa la weydiinaya jihadii aad ka timi imaanshada, ma garatay, halkeed ka timi weeyaan. marka 3 erey baan haysanaa marka oo lagu weydiin karo maaragtay jihooyinka lagu weydiin karo iyo goobta lagu weydiin karo. tan ugu horeysa waa var, waa halkee weeyaan joogitaankaaga, halkee joogtaa waxa weeyaan. tan labaadna waxa weeyaan vart, halkeed ku socotaa weeyaan. tan kalena waxa weeyaan varifron weeyaan oo halkeed ka timi weeyaan ama halkeed ka soo jeedaa. tan ugu dambaysa waa vem weeyaan, waa qofkee weeyaan ama kee weeyaan, oo waxaa laga weydiiya ashkhaasta ayaa laga weydiiya. haddii aan si degdeg ugu soo celino ereyadii aan soo qaadanay, waxaan vad buu ahaa oo maxay weeyaan ah. naar oo ah goorma, oonan waqti exactly saacadaanan ahayn, laakiin goor xilli waxaad leedahay xagaagoo kale, samarkoo kale, waqtigaas oo kale. marmarna waxaa loo isticmaali karaa xataa in waqti markuu jiro xataa. hurdags oo loo isticmaalo marka saacad xadidan, ma garatay, aad qofkii weydiinaysid oo goormaad shaqadaada dhammaynaysaa, 6 uu kugu odhanayo goormay, ma garatay, yani waxaas dhacayaan maalinta isniinta saacadda markaysaa tahay, wax exactly xadidan oo waqti ku xiran. hur waxa weeyaan waa sidee weeyaan, waxaa la weydiiyaa kayfiyadda, ma garatay. halka var uu ah halkee ah, halkee goobta qofka uu joogo oo kale, halkeed joogtaa. vart waxa weeyaan halkeed ku socotaa weeyaan. varifronna iyo waxa weeyaan waa halkeed ka timi imaanshaha, ma garatay. su-aashana inta badan waxaa lagu weydiiyaa qofka markaad weydiinaysid dalka uu ka yimi oo kale, halkeed ka soo jeedaa, dhalashadaadu waa halkee. varifron baad leedahay, comerdu baad leedahay, marka waxa weeyaan halkeed ka soo jeeda oo ka timi weeyaan. tan ugu dambaysana waa vem, waxa weeyaan waxaa la weydiiyaa qofka bini aadamka ayaa la weydiiyaa kee weeyaan ama qofkee falka sameeya oo kale markaad rabsina weydiisid. haddaan tusaalooyin soo qaadano halkan waxaan haysanaa jumlado. qofka bini aadamka inuu ereyga keligiis xafido waxa weeyaan waxaa dhici karta inuu markiiba ilaawo, laakiin jumlad hadduu geliyo jumladaasna uu isticmaalo waxa weeyaan maskaxdiisa ayay gelaysaa. halkan kan ugu horeysa ereyga ugu horeystan isticmaalayna waxa weeyaan waa vem weeyaan. vem are du. du waxaan kusoo qaadanay casharkii hore oo wuxuu ahaa baan nidhi waa adiga weeyaan. vemna waxaan nidhi waa ayo, marka halkan waxa weeyaan yaa tahay weeyaan, adigu yaa tahay. yog are axmed baad leedahay, anigu waxaan ahay axmed. varifron kommer du, halkeed ka timi, halkeed ka soo jeedaa. yo kommer from somalia, anigu waxaan ka soo jeedaa soomaaliya. hur mor du,
waxa weeyaan sidee tahay qofka xaaladiisa baad weydiinaysaa. Yo more bro, tak, anigu waan fiicanahay, waad mahadsan tahay. Var är du, halkee joogtaa hadda weeyaan, waa waqti hadda la weydiinaya. Var är du, halkee joogtaa xilligan. Jag är på tåget, anigu waxaan saaranahay ama waxaan joogaa tareenka. På tåget macnuhu tareenkii baan saaranahay, tareenkaan saaranahay. Vart ska du, su-aashii baad markaa weydiinaysa, waxaad ku leedahay halkee u socotaa markaa tareenka markaad saaran tahay. Jag ska till Stockholm, anigu waxaan u socdaa. Till waa to-da Englishka weeyaan, ama ku waxa weeyaan Stockholm baan u socdaa buu leeyahay. marka waxaan arkaynaa farqigan hadda u dhexeeya var iyo vart. halkan var är du, halkee joogtaa, qofkii wuxuu sheegayaa meel uu joogo. baskaan saaranahay, tareenkaan saaranahay, gurigaygaan joogaa, halkaasaan joogaa. iyo vart ska du, iyo waxay macnaheedu tahay halkeed u socotaa, jihadaadu waa maxay. qofkan wuxuu ku jiraa dhaqaaq buu ku jiraa, jihana uu socdaa. marka jag ska till Stockholm weeyaan, anigu Stockholm ayaan u socdaa. kuwa kale haddaan eegno vad halkan baan arkayna oo ay maxay ah. vad ska du göra där, maxaad ka samayn doontaa weeyaan. halkan ka samayn doontaa ereygan oo dhan adugu, maxaad ka samayn doontaa adugu halkaa. där, maxaad halkaa ka samayn doontaa. jag ska börja jobba, anigu waxaan bilaabi doonaa shaqo. anigu waxaan bilaabi doonaa shaqo, shaqo ayaan bilaabi doonaa. hur dags börjar du, waa kan haddaba farqigii aan u arkaynay. kan iyo kan waan arki doonaa farqiga u dhexeeya. hur dags börjar du baa layidhi waktigee, xillimee, goorma ayaad shaqada bilaabaysaa. jag ska börja klockan 8, waxaan bilaabi doonaa saacaddu markay tahay 8 markay tahay, ama 2 saac subaxnimo markay tahay. halkan waxaa arkaa naar, marka naar slutar du, goormaad dhammayn doontaa. jag slutar på eftermiddagen, aniga waxa weeyaan waxaan dhammayn doonaa xilliga galabtii baan dhammayn doonaa. halkan muu siin waqti exactly muu siinin, laakiin wuxuu yidhi galabtii baan dhammaynaya, saacad xadidan muu siin, goormaad dhammaynaysaa. marka halkan waxaad arkaysaa hur dags waxa weeyaan waqti baa yimi, halka naar uu yimi uun xilli maaragtay uu yimi. waaye halkan markaa laba shay baa muhiima inaan kala saarno oo aan ku daro oo huur ku saabsan. huur waxaan nidhi waxaa su-aal lagu weydiinayo qofka xaaladda ama kayfiyadda uu ku jiro. sidee tahay, maxaad dareemaysaa, maxaa la ydhahdaa. laakiin huurku waxaa leedahay lafteedu isticmaal. keligeed markay timaado ayay tahay xaaladda la weydiinaya. laakiin markay matalan monga u raacdo, ma garatay, huur monga waxay noqonaysaa waa imisa ama tire intee leg bay noqonaysaa. tire intee leg ma garata ayay noqonaysaa markay labadan erey ay israacaan. monga markay raacdo huur. hur monga barn har du, ma garata ereyganaan jumladanaan soo qaadanayna oo ah imisa caruur ayaad leedahay ama aad haysataa. marka huurku waxa weeyaan waa marka qofka laga weydiinayo xaaladda ama kayfiyadda uu ku sugan yahay. laakiin monga markay raacdo waxay tilmaamaysaa wax ka duwan oo tiray tilmaamaysaa, tiruu qofkii weydiinaya. halkan sidoo kale huur mike marka la weydiiyo waxay noqonaysaa, miki markay raacdo huur waxay noqonaysaa waxaa la weydiinayaa qiimihii baa la weydiinayaa, ama waxaa la weydiinaya huur miki sida yani qiimihii shayga uu leeyahay, ma garatay, ayaa la maxaa la yidhahdaa, ama tiradii ma garatay lacagtee lagu iibsan lahaa oo kale ayaa maxaa la yidhahdaa. hur miki kostar det, imisa ayuu qiimaheedu yahay, imisa ayuu qiimaheedu yahay shaygaas, ma garatay. marka waxa weeyaan degdeg haddii aan ugu soo celiyo ereyo waxa weeyaan su-aaleedkii waxaan idhi waa vad oo maxay ah, naar oo goormo ah, hur dags oo goormo saacad la weydiinayo qofkii, hur oo sidee ah oo markay ku xigto monga iyo miki ay tilmaamayso waxa weeyaan qiimo shay ama tiradiisa ah. var oo ah halkee oo goobta qofku jooga ah ama shaygu yaallo. vart waa halkee jihadu qofku u socdo ama shaygu u socdo. varifronna waxa weeyaan halkee waa meeshuu ka imanayo qofku ama ka yimi, ama maxaa la yidhahdaa shaygu ka yimi. thanna waxa weeyaan waa su-aal qofkii la weydiiyo oo ah kee weeyaan ama qofkee weeyaan. kaasi wuxuu cashirkeena afraad ee ku saabsanaa erey su-aaleedka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.